wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay digniin ku socota diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta kale ee Maraykanka ah oo lagu wargeliyay inay digtoonaadaan. 22 safaaradood iyo qunsuliyadood ee la xirayo ayaa ku kala yaala 17 waddan oo 6 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika, kuwaasi oo kala ah Djibouti, Suudaan, Masar, Liibiya, Algeria iyo Mauritania. wadamada kale ayaa u badan bariga dhexe waxaana ka mid ah Yemen, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Ciraaq, Kuwait, Jordan iyo Cumaan. waxaa iyaguna ku jira liiska Bangladesh iyo Afghanistan. gabadhu hadasha wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo lagu magacaabo Mary Harf ayaa warbaahinta u sheegtay in halista ka imanaysa waxa ay ugu yeedhay argagixisada ay ku xoog badan tahay danaha iyo muwaadiniinta Maraykanka ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. The Department of State has instructed certain US embassies and consulates to remain closed or Mary Harf waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay ku amartay safaaradaha iyo qunsuliyadahaas cayiman inay albaabada u xidhaan maalinta Axadda oo bisha August ay tahay 4 oo ah maalinta berrita. dowladda Maraykanku waxay sheegtay in weerarku uu ka imanayo ururka lagu magacaabo Al-Qaacidada Gacanka Carabta oo loo soo gaabiyo AQAB. waxaa warbixinta dowladda Maraykanka lagu sheegay in ururka Al-Qaacida iyo ururada isbahaysiga leeyihiin laga yaabo inay weeraradan fuliyaan goor kasta ilaa laga gaarayo dhammaadka bisha August. dowladda Maraykanku waxay sheegtay in waxa ay ku tilmaantay argagixisadu laga yaabo inay isticmaalaan habab iyo hub kala duwan ayna weerari karaan saraakiisha iyo shakhsiyaadka caadiga ee Maraykanka u dhashay. waxaa looga digay muwaadiniinta Maraykanka ah suurtagalnimada in weeraradan lala beegsan karo gaadiidka dadweynaha iyo goobaha dalxiiska. waxaa lagu sheegay digniinta in hore ay kooxahaasi u bartilmaameedsadeen tareennada dhulka hoostooda iyo kuwa korkooda mara iyo weliba gaadiidka cirka iyo badda. waxaa la faray dadweynaha Maraykanka inay hareerahooda ka feejignaadaan ayna qaadaan tallaabo kasta oo munaasib ah oo ay naftooda ku badbaadinayaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxay sheegtay in digniintan ay ku salaysan tahay xog ay Maraykanku heleen taasi oo kaliftay in albaabada loo xiro 22 safaaradood iyo qunsuliyadaha oo badankooda ku yaala wadamada Islaamka. The department has been apprised of information that, out of an abundance of caution and care for our employees and others who may be visiting our installations, that indicates we should afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mary Harf waxay sheegtay inay heleen macluumaad faraya in feejignaan ballaaran la muujiyo lana ilaaliyo amniga shaqaalaha iyo dadka kale ee booqanaya dhismayaasha Maraykanka. waxay sheegtay in wasaaraddu ay markii duruufuhu kalifaan ay qaado tallaabooyin noocan oo kale ah oo lagu miisaamayo sii wadista howlaha iyo amniga dadka hawsha wada siday hadalka u dhigtay. isla jimcihii shalay ayaa dowladda Britain waxay sheegtay inay xidhayso safaaraddeeda dalka Yemen maalmaha Axadda iyo Isniinta walaac dhinaca amniga darteed. waxay sheegtay Britain inay ka walwal qabto xaaladda amniga ee safaaradda maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan. dhinaca kalena afayeen u hadlay midowga Yurub oo lagu magacaabo Alexandre Bolak ayaa jimcihii shalay sheegay in midowga Yurub ay xiriir la sameeyeen mas'uuliyiinta Maraykanka. waxa uu sheegay in midowga Yurub aysan xilligan haynin wax cadaynaya halis ku soo fool leh howlwadeennadooda balse ay taxadar galayaan. saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in wadamada la xiray safaaradaha Maraykanka la ballaarin doono kadib marka qiimeyn la sameeyo. digniintan ayaa imanaysa iyadoo ku dhowaad sanad ay ka soo wareegtay markii Maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah ay weerar ku qaadeen qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. waxaana weerarkaasi ku dhintay safiirkii Maraykanka ee Liibiya Christopher Stephens iyo 3 kale oo Maraykan ah. dilkaasina waxa uu noqday mid ilaa haatan wejigabax ku haya xukuumadda madaxweyne Barack Obama. sidoo kale maalinta Arbacada ee soo socota ayay ku buuxdaa 15 sano markii weerarada mataanaha ah lagu qaaday safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam sanadkii 1998. weeraradaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof.